waftigan oo horkacayaan saraakiil ciidan iyo maamulka gobolka Sool ayaa ka amabaxay magaalada Garowe waxaana ay sheegeen in saraakiishan ay ku wajahan yihiin magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. waxaan timaadeen anagoo sidaalsan guurina balan meedan lahayn wadalka wala difaacaya arrimaha Laascaanood ka socdana waad ka waraysaan oo inii sheegin waa difaacayna gudaha la suugalaya barnaamijka iyo gudaha wala suugalaya intaas aynu sheegnaa wax dhaafsiisan oo arin ciidan marka labaad waxaan ka tacsadeenayaa dadkii ku dhintay shahiidiinta ahaa ee ku dhintay gobolka Sool degmada Laascaanood wax badan ka hadlimayna caawa diyaar garow baanu nahay waxaan diyaar u nahay dalka inaan difaacno waxa weeye noqon mayso Laascaanood meel dadka lagu qasho annaguna aanu maxaan ku raahdaa farxad iyo nolol ku noolaano dadka iyagaan la dareenahay waa dagaalamanaa Laascaanoodna noqon maayo dagaalka kuliya meel badan baa la isla galaya waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo oo ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed ba aan u sheego waxaanu rabnaa in loo hiiliyo waxaanu rabnaa in la garab istaago dagaal baanu diyaar u nahay maanta waa iswada qisaasana waana dagaalamanaa gudoomiyaha gobolka Sool Jaamac Aadan ayaa qayb ka ahaa waftigan warku wuxuu ku dheeyahay inta taliyuhu sheegay marxaladda jirta ama maanta waxa socda cid ka adkaysan doonta iyo cid u dulqaadan doonta oo dambe ma jirto sida taliyuhu sheegay Laascaanood waa la isla dhaafaya insha Allah taala dadkaas in badan baa la dulqaatay dulqaad waa dhamaaday ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka way aragtay waxa Laascaanood ka socda xasuuqaan cidna loo aabayeelaynin cid dambe oo loo dulqaadanayo ehelnimo dambe iyo darisnimo dambe waa dhamaatay Laascaanood maahan meeshii walba waa la isla galaya u tacsiyeynaya dadkii shahiidiinta ahaa gardarrada lagu laayay magaalada Laascaanood waa u tacsiyeynaya ilaahay waxaan leeyahay xaq darra lagu laayay jannatu firdawsaha ka waraabi waxaan kale oo ilaahay u baryayaa inuu caafimaad siiyo dadka dhaawaca ilaahay u boogadhayo nabar xaq darra inuu ilaahay uga dhigo sida saraakiishu sheegtay Laascaanood waa la xoreynayaa lagana laaban maayo faraha laga laaban maayo gacantana laga laaban maayo haddii ilaahay idmo waana la isugu tagayaa dhammaan waxaan leeyahay qof kasta meeshuu joogo kuwii awal xagga hore ugu jirana waxaan leeyahay waa aragtaan sida dadkiina loo gelayo ka qayb qaata xoreynta maalmihii ugu dambeeyay waxa magaalada Laascaanood ka socday dibadbaxyo ay shacabku magaaladaasi ka dhigayeen iyagoo halkaas lagu dilay dad shacab ah oo ay qayb ka ahaayeen dibadbaxayaasha waxaana xiran goobaha ganacsiga Cabdi Shukri Yaasiin Aadan MMTV Garowe.